السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين أضبط سلام يا صاحب بيال وحويان ومركي وجوه الرئيسي أنت اللي جوتشر بيشة بركة سنة رمضان يعني ستوسا يسوسهر فريسانو وحويان أنت كلا واحد مشغول سنة رمضان بروجكتس كي مقالدة دوبي رمضان تي الدين رمضان تي عافماتك ولو مقالة كلا فربضن أن صوّدوا وإن شاء الله عن كنال كي نسوق لندونه هذا نوع ما جعل استيمانته إن شاء الله إن وحويان مقال كان عن دحتالنا وقردقو oo aan inoo soo celiyo barnaamijkeena book club aynu ku gurfeyn jirnay maarta buugaagta kuwooda ugu wacan aan anigu akhriyay marka hal muuqaalun baan intii soo galiyay muuqaalkaasina waxa kaga hadlayay buuga Atomic Habits maanta insha Allah waxaanu ka hadlaynaa buuga Man's Search for Meaning uu qoray Professor Viktor Frankl marka insha Allah bal waxaan isla eegi doonaa buugan buug 154 page bal insha Allah waxaan isla eegi doonaa buugan waxyaabaha ku jira waxyaabaha uu qoraagu kaga hadlayo iyo sababta buugan uu qorayba insha Allah muuqaalkan ayaad kaga bogan doontaa marka buugan insha Allah waxaan u qaybin doonaa saddex section ama saddex qaybood qaybta koowaad waxa weeyaan buuga iyo qoraaga ayaynu si yar oo kooban uga hadli doonaa kadib waxaan u gudbi doonaa qaybta labaad oo ah logotherapy wax la dhaho buuga runtii aad iyo aad uga hadlayo waxaan dadana u gudbi doonaa sectionka ugu dambeeya saddexaad oo ah wax la dhaho paradoxical intention waxa weeyaan waxa ka warwarina kelmadaha adag yihiin insha Allah hal muuqaalkan ayaynu waxa weeyaan kula faguri doonaa marka haddaynu tagno qaybta koowaad ee buuga si kooban iyo qoraaga si kooban aynu uga hadlayno horta buugan waxa la dhahaa Man's Search for Meaning waxa weeyaan waa buug runtii New York Times bestseller waa buug aad iyo aad inta badan dunida looga iibsado meel kastoo aad maanta dunida ka tagto waa buug laga helayo waxaana qoray Professor Viktor Frankl marka Professor Viktor Frankl wuxuu ku noolaa waddanka Germany ilaa 1960yadii meelaha 70yadii kadib waxa dhacday in Adolf Hitler uu waddanka qabsaday oo dadkii oo dhan jeelal lagu guray marka isagu wuxuu galay concentration camp wax la dhaho oo jeelba ka darnaa marka shuruuc bay lahayd concentration campkii oo qofkii maaragta hadduu qofku xanuunsado ama uu qofku jirkiisu maaragta daciifo qofka waa la dili jiray intuu qofkaasi shaqaynayna waa lagu shaqaysan jiray marka qoraagu wuxuu sameeyay wuxuu ku noolaa concentration campka ama jeelka wuxuu ku jiray 3 sano isagiyo 3 qof oo kamid ah familigiisa ama qoyskiisa waxa lagu daray concentration campka oo halkaas maartay ay ku jireen halka saddexdii kale ee qof ay dhinteen isagoo qurina uu ka soo haray marka qoraagu wuxuu ka hadlayaa sababta asxaabtiisii qayb kamid ah iyo qoyskiisii qayb kamid ah ay meesha ugu dhinteen ay uga soo bixi kari waayeen waliba maaragta iyagoo niyadoodu dilantahay meesha ku dhinteen iyo sababtu isagoo niyadsan meesha uga soo baxay waliba markii dambe maaragta business aad u balaaran uu sameeyay buugan uu qoray uu ka noqday lecturer jaamacadaha Harvard, Stanford iyo Cambridge marka insha Allah qoraagu waxa weeyaan buugan waa experience wuxuu ka hadlayaa khibradiisii iyo sheeko ku dhacday at the same time buugan waxa weeyaan waa buug educational oo buug wax fara badan ku faa'iideynaya marka isagoo professor oo psychologist dhigta psychologist ayaa wax la geeyay kadib dabeetana concentration campkaas lagu riday uu ka soo baxay isagoo 3 sano ka bacdi uu ka soo baxay waxaan u noqday professorka buugan qoray waliba buugaagta loogu iibsashada badan yahay haddaan u baahayn buuga inta badan la iibsado marka qaybta labaad ee buuga haddaynu tagno qaybta labaad ee buuga waxay ka sheekeynaysaa logotherapy wax la dhaho oo maarta qoraaguna aad uga hadlayo logotherapy macnaheedu waxa weeyaan in qofku waqtiyada adag uu rajadiisu aanay rajo quran noqon ee uu rajo aqli ku dheehan tahay uu noqdo wuxuu ka hadlayaa nin saaxiibkii ah oo oran jiray bari baan ka baxayaa jeelka saadamaan ka baxayaa saakumaan ka baxayaa sanadka dambe soo socdaan ka baxayaa inuu meesha ku dhex dhintay waliba aanu xanuun la taaban karo aanu dhimanay uu dhintay psychological disorder rajada aanu isagu controlkeeda lahayn uu naawilaya ay ku noqotay xanuun marka halkii buu isagu ku dhintay marka wuxuu ka hadlayaa logotherapy-ga inuu qofku aanu rajo aanu naawilin waqtiyada adag uu rajo macno leh naawilo oo kaba soo qaadbay isagu wuxuu naawilaya inuu buugan qoro ama wuxuu rajaynaya markuu meesha ka soo baxo inuu maarta experience-kiisa ama khibradiisa uu u bedelo wax la taaban karo dadku ka faa'iideysan karaan marka waxa weeyaan buugan runtii waa buug aad u muhiima inta yar aan ku soo koobayna kuma koobna waxa weeyaan waxyaabo fara badan oo kale oo qoraagu noloshiisa kaga hadlaya jira aan halkan muhiim baahayn inuu kaga hadallo marka waad akhrin karaysaa 154 page meel kastoo aad maanta joogto waad ka heli karaysaa buugan waa buug runtii aad iyo aad u caana waxaa la dhahaa Man's Search for Meaning waxaan rajaynayaa inaad caawiso muuqaalkan yar aan halkan idin soo dhigay aadna buuga insha Allah bilaabi doonto akhristiisa
إن شاء الله muuqaal lamidana intay ku kulmi doono aad baan idin salaamaya saaxiibayaal waxa weeyaan buug kale jirto imka buugga Never Split the Difference halkan yaala insha Allah aan idin soo gudbin doono marka buug fara badan oo halkan aan ka soo gudbin doona jira insha Allah waxa weeyaan waa inoo muuqaal dambe iyo buug kale